مواد بانهاي magaaladii aan u dhashay baa la iga soo celiyay dastuurkana qodobka 19 ayaa waxay cadeynaysaa in qof muwaadin ah isagoo aan cinda ka amar qaadan magaaladu rabo uu ka dagi karo meeshuu rabo uu dagi karo meeshuu rabona uu duuli karo waxa ognahay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan baa ka jira especially hadda ilmaha nool oo la soo tuurayo oo eeyada ay banaanka ku cunaan oo aad iyo aad u xanuunka badan ani waxaan aaminsanahay qodobo badan marka la akhriyo wuu furan yahay gudoonka rabaa in Allah gudiyada qoraya qodobada in la xiro oo laga daayo sida hadda ay tahay ubadka markuu dhasho wuxuu xaq u leeyahay in loo bixiyo magac maxaa nacam inuu jiro xeer cadeynaya magaca la sheegaya muxuu yahay ila waa aragtay dhalinyaro yar oo 17 jir ah ayaa magacyo aan la qaban karin oo magac aan la fahmayn ulaba baxaba ilmaha marka sidee lagu xadadi karaa ma marka dhalashada ilmaha uu qaadanayo baa la xadidaya macnaha halkaas xageebay ku xiran tahay in magac loo bixiyo magac muslim uu noqonayo ama magac uu yahay laakiin midda ah in laga keeno sharci markasta waxa arkaysaa xuquuqda caruurta iyo xuquuqda qofka bini'aadanka uu leeyahay hadda qodobka 19aad xuquuqda uu leeyahay muwaadin baanahay magaaladii aan u dhashay baa la iga soo celiyay dastuurkana qodobka 19aad ayaa waxay cadeynaysaa in qof muwaadin ah isagoo aan cinda ka amar qaadan magaaladu rabo uu ka dagi karo meeshuu rabo uu dagi karo meeshuu rabona uu duuli karo marka maxaa cadeynaya oo aan rabtaan inaa qortaan maxaa ka imaanaya haddii aniga baydhabo la iga soo celiyay qofka isoo celiyay muxuu mutaysanaya aniga waxaan qabaa maadaama dastuurka la dhameystirayo in la keeno waxa dambiga qofka gala waxa uu wajahayo inay cadahay marka in la dhaho qofka xuquuq baa leedahay xuquuqdii aan leeyahayna haddii lagu xadgudbo uusan qofkii wajahaynin waxaan arkaa inaysan ahayn dastuurkii la dhameystirayay macna uusan samaynayn marka aan ku soo noqdo qodobka koowaad xeerka ilmaha waa waxa ugu adag oo maanta cuqubada ah oo inoo hor yaala ilmaha waalidkiis dilay isagoo 2 jir ah 1 jir ah oo guguban ayaa noo hor yimaaday baarlamaankii 2017kii hooyo ayaa waxay tiri cunugan waxaan u gubay faal ayaa la ii sheegay inaana ilmo dhalayn marka cunugu bay gugubtay maxaa marka qorshe ah oo loo hayaa maxay tahay ciqaabta maamadaas ay marayso haddii laga qaado see looga qaadaya ilmaha la soo tuuraya xeerkee lagu qaadanaya oo yaa mas'uulka ah ma waxa jira dawladii baa la wareegayso xeer waxa jira qodobka xeerka hebel la dhaho waalidkaas waa laga qaadanaya la soo tuuray dawladda iskale marka aniga inta laga digtoonaado oo la cadeeyo xogaasa waxana jira idinkoo maasan qodobka 32 farqadiisa koowaad waa qodobo iyadana furan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in go'aan laga gaaro go'aamada maamuleed ee ka soo baxa maamulada heerarka kala duwan ee hay'adaha dawladaha ahaan markasta markii aan akhrisid xeer kasta waa furaya waxaana lagu dhahayaa oo meeshan ku qoran go'aanka maamuleed ee cadaaladda aniga waxaan qabaa Soomaaliya 30 sano burbursan tahay in cadaaladda marka laga hadlayo xuquuqa bini'aadanka marka laga hadlayo inay jiraan qodob xiran oo kooban oo aan ahayn haddii ay saa tahay explanation wax kasta idinku faahfaahiya laakiin inay soo xiran tahay hadaayeeto waxaan rabaa inaan sakin gareeyo midii ahayd qodobka ma aan qorin midii maxaabiista la isku kala bedelayay ayadana waa qodob furan meel wuxuu sheegayaa in ay la isku bedeli karo meel waxa la sheegayaa in muwaadinka xiran uu leeyahay xuquuq saasa mana jiro wax cadeynaya marka waxa codsanayaa waa soo gaabinaya inay xuquuq kasta markii meel lagu dhaho inuu leeyahay qodob soo xiran salaam calaykum internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan
4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.